نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وبعد، آية بقولي أفر سورة الأنعام. قال الله تعالى: إلهي baa waxa uhi qad jaaءakum dadii ha waxa idin yimi basaa'iru shay arag u ah quluubta oo min rabbikum ilaahayna xaggiisa ka yimi araggii quluubta. faman absara qofka xaqa arka falinafsi naftiisu u arka oo ka faa'idi, waman camiya qofka indhabeela facalayha faddararu calaa nafsi dhibaatadu naftiisay saarantay. wamaa ana calaykum anigu ma ihi dushiinna bixafiidin mid ilaalinaya oo ilaahay kala xisaabtamaya camalladaas samaysee sidaa ku dheh. wakadaalika sidaasaanu nusarifu laayaat aayadaha u cadcadaynayna oo u kala saafayna waliyaquuluu si ay u yidhaahdaan darasta waad soo akhrisatay maxamedow, walinubayinahu iyo si aan ugu caddayno liqowmin yaclamuun qolyo garanaya. ittabic nebi maxamedoo waxaad raacdaa oo aad ku egaataa maa uuxiya ilayka min rabbik ilaahaaga xaggiisa qur'aanka lagaaga waxyooday iyo waxyiga. laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane. wa acrid cani ilmushrikiin kuwa sanam caabudka ama gaalada iskaga sii jeedso oo yay ku saamayni. walow shaa allaahu rabbi hadduu doono maa ashrakuu may shirki sameeyeen. ilaahay baa qadaray wax hore uu sii ogaabay ahayd. wamaa jacalnaaka kaamaanaa dhigin calayhim xafiidan mid dushooda la yidhi tirakoob sida malaa'igtu u tirakoobaysoo kale gaadhsiiyaa tahay adugu. wamaa anta calayhim biwakiil mid loo tala saartayna mayhide ilaahay baa kala xisaabtami doona. waxaa halkan ilaahay uu inoogu mano sheeganayaa nicmadu ummaddan siiyey waa qur'aankii. basiiratun basaa'ir basar iyo basiira ayaa kala jira. basarku waa aragga indhahan ayaa basar la idhaahdaa. basiiraduna waa indhaha quluubta oo siday indhahani u leeyihiin arag ee qofku madowga iyo iftiinka iyo dhibaatada iyo wixii wanaagsan ugu kala arko ayaa quluubtuna ay indha u leedahay. ilaahay baa wuxuu uhi fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur. waxaa dam noqotay dadkan iyaga ah indhahan way qabaane indhihii quluubta ayaa dam ah. indhahan dhakhtarku waxbuu ka yaro wadwadi karaa, laakiin kuwa dhakhtarkoodu inuu qur'aanka yahay ayaa halkan nasku uu xusay. haa qad jaa'akum basaa'iru min rabbikum basaa'iru min rabbikum shay arag idiin ah oo xujo iyo daliil idiin ah oo qalbiga iftiiminaya oo noolaynaya ayaa dad yahow idin yimi. saasay tahay inaynu u fahamno manhajkan ilaahay ummadda uu siiyo. markaasaa qalbiga bilaa qur'aana ama qofka bilaa qur'aanihi waa kalbayti alkharib guri kharaabadahoo kale. insaanku markuu bilaa qur'aan yahay bilaa waxyi yahay indhihiisii waa madowyi. markaasaa wuxuu la mid yuu nebigu tusaale kaga bixiyey inuu yahay kalbayti alkharib qofkaan dikri lahayn qof aan qur'aan lahayn. waaya faman absara falinafsihi waman camiya facalayha. qofka wax arka isagaa leh. qofka aragga siraata ee safaysta aragga quluubta dee isagaa faa'iiday. qofka isindhatiree u dhagooleeya qur-aankana isaga ayaa dhibaatadu saarantay. halkaa waxaa nasku inoogu muujinayaa sirta ama xikmadda la inoogu waajibiye camallada iyo cibaadada. ma aha inay ilaahay wax u kordhinayso, ma aha diinta ilaahay inay baaba'ayso la waayayo,
ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba uma kordhinaysa waa qaniga uu ka maarmay ilaahay diintiisana mar walba dad buu u diray isagoo hiilinaya laakiin insaanku isagu xagguu ka faa'iidaya xagguuse ku halaagsamayaa bay tahay inuu kala garto waman camiya facalayha waxa aayaadka ilaahay uu ku soo celcelinayaa doorka nebi maxamed inaanu ahayn dadka inuu qalbiga ka geliyo qur-aanka inuu qasab ku hanuuniyo oo wada mu'miniin ay ku noqdaan inaanay shaqadiisu ahayn laakiin shaqadiisu ay tahay albalaaqu almubiin albalaaq almubiin dadka inuu gaadhsiiyo oo si nasiixa leh oo la xajeclo leh oo uu ku mitidayo oo naf iyo nafiis iyo wax kastoo qaalaya uu ku bixinayo oo xigmaddeeda iyo basiiradeeda leh inuu dadka u gaadhsiiyo taasuunbaa la gudban laqad jaa'akum ilaahay taana uga markhaati kacay markuu yidhi laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniin ra'uufu raxiim rasuul intaasoo sifaloo la xajeclo badan oo idinla jecel hanuunka ayaa idin yimi oo ilaahay idinku manaysta marka dhowrkan soo noqnoqonaya wamaa ana calaykum bixafiid iyo qaybta dambe ilaahay uhi wamaa jacalnaaka calayhim xafiida wamaa anta calayhim biwakiil intuba waa isku macno haddii ay gaaloobaan ay hanuuni waayaan ilaahay maxay u hanuuni waayeen ku weydiin maayo laakiin waxaa laga weydiinayaa ma gaadhsiisay ma u naseexaysay ma u cudurdaar dhammaystay xujadii ma ku oogtay taasaa laga weydiinayaa waxaa halkaa ka muuqanaya balaaqaasi baa innagana ina saaran iyo bayaamintaa iyo gurmadkaa dadka aynu diinta ula gurmanayno midhaha soo go-aya iyo natiijada samaysmaysa iyo cidda hagaagaysa iyo cidda hanuunaysana waa kan ilaahay ka hadlay in qofka mas-uuliyaddiisa aanay ahayn wuxuu qofku gacanta ku hayo awooddiisa ka koobanna aanu ahayn وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون سداسان نصرف الآيات آيادي بان سو دجينا وانا عدينا ذا الهو marka quraan laana laguma marmarsoon doono waa la fahmi waayna laguma marmarsoonayo quraan lama keenin iyo diin marmarsiyahaas uu haray waanaan fahmin quraankii oo mid la fahmi karaya ma aha isagana laguma marmarsoonayo ilaahay baa wuxuu nusarrifu al-aayaat waa kii nabigu ka qancinaya calayhi salaatu wasalaam asxaabtee lahaa ina alqur'aana yusaddiqu bacduhu bacdan qur-aanku wuu isu rumaynaya ha iska horkeenina aayadda qaybtan dambe markii qur-aankii la keenay isagoo basiiro ah oo aragga quluubta furaya markii ilaahay uu cadcadeeyey ayaa in fara badan oo iimaan laawayaasha dadkii ka koobnaayihi waxa ay ka hor keeneen qur-aankii iyo rasuulkiiba maqaaladan maxay leeyihiin waliyaquuluu darasta macnaha wayucriduuna way sii jeesanayaan liyaquuluu darasta ama walaa yu'minuun wowgu ficil maxduufu daakhil ku yahay ma rumaynayaan liyaquuluu darasta si ay u yidhaahdaan hadalkaa saddex qiroo sabciyaa baa ku jiro midi waa tan qoran oo waxa weeye darasta midina waxa weeye darasat midina waa daarasta darasta macnaheedu waar wuu soo akhriyay weeye wuu soo akhriyayoo kutubtii kuwii hore ayuu soo daalacday markaasuu soo koobigareeyey markaasuu inagu dul akhriyayaa maxamed wuu soo bartay innamaa yucallimuhu bashar waa la soo barayoo waxani ma aha wax ku soo degaya darasta waxa weeyaan darasa iyo darasa daaris mudaris darasa ismigeeda faacil waa daaris waa qofka akhriyaha ah darasa iyadana ismigeeda faacil waa mudaris waa gudbiyihii dadka barayay marka macnaheedu waxa weeye adigii baa soo bartay kaasada annagii noo sheegaysa haddii alif uu meeshii yimaado la yidhaha daarasta sida quraada sabcada qaarkood akhriyayaan macnaheedu waxa weeya waa faacalo oo ficlul ithnayn baa laga laba dhinac buu ka yimaadaa waad soo akhriday weeye cid baad la soo subcisay cid baad ku soo qaybsiisay cid baa ayaad la soo baratay innamaa yucallimuhu bashar waa kuwa leh bani aadam baa soo baray marka mid buu la soo akhristayoo qoladaa ahlulkitaabkiiyo ka mid ahoo kiibay dabeetana isku soo akhriyeen
darasat haddii la idhaha bisukuuni taada xagga dambe la sikneeyo macnaheedu waxa weeyaan aayaadkani way tirmeen asaadiiru alawaliin ayay markaa la macno tahay tii ay yidhaahdeen darasat way baaliyowday aayadahan iyo kuwii imika lagu dhaqmi lahaa ee lagu camal fali lahaa maahee waa kuwii ummadihii hore wakhtigoodiina wuu dhacay sidanay gaaladuba imika u yidhaahdaan casra alxajari berigii hore unbaa diimahan iyo inahan lagu dhaqmaye imika samada iyo meelahaasaa loo duulayoo diimaha iyo waxaa waa la dhaafay siday gaaladan xunxunkii u yidhaahdaan ayuunbay kuwa berigaasina odhan jireen darasad way baaliyowday aayaduhu taawtaaniidkuna wuxuu tilmaamaya aayaadku way baaliyoodeen ilaahay wuxu uhi walinubayinahu liqowmin yaclamuun dad cilmi lana waa u caddaynaynaa midna hadalkaasaa ka soo yeedhaya midna waxa uu faa'iidaystay waxyigan ilaahayoo cilmi buu ka kasbaday ila waa mastarkii macrifadeeda qadiyadda manhajka ayaa markaa ilaahay ummadda uu ku adkaynaya raaciddiisa dadka waxa lagu qiimeynayaana waa kaa ittabic maa uxiya ilayka min rabbik waxa aad raacaysaa kii lagu waaxyooday adigu raac taasaynu ku amranna laguma amrano qof waliba inuu reerkooda iska raaco qofku kuma amrano ikhtiyaar uma leh mid kastoo naaciqahoo baaqa inuu daba jiboodo shaydaan inuu daba jiboodo maya waxaynu ku amrannahay oo ilaahay nagu addoonsaday kitaabka uu soo dejiyo xadhig uu soo laalaadiyay inaynu cuskanno innaga iyo ilaahay kaasaa ka dhaxaysa abtirsiimo kale ma jirto waacrin can ilmushrikiina waxay tilmaamaysaa gaalada ka sii jeeso leanna dhegtu wax kugu hayaa gaalku dee ma ogola ittabic maa uxiya ilayka min rabbik diin ilaahay in la raaco ma ogola diin laawa diin ma ogola waxbuu dadka dhegta ugu hayaa shaydaankiibaa ka dhex hadlaya raacidda xaqana cudur ku ah iyo khatar ku ah marka isaga ka sii jeeso hawaaba yeelin marka aad ka goosateed istiqlaaliyadaada yeelato eed manhajkaaga iyo diintaada mustaqil u noqotood raaci karaysa waa midhka la gudban dadka muslimiinta qadiyaddu markay mabaadi timaado iimaanka ay timaado usuusha ay timaado ummadaha kale inaan cidna waaba yeelin dadka kale waxaa lala dhilgarayn karaa ama lala eegi karaayoo laisla rogrogi karaa wixii aan la xidhiidhin usuusha wixii aan asalka la xidhiidhin laakiin mabaadida iyo usuusha iyo diinta ilaahay iyadu tanaasul ma leh walow shaaa allahu maa ashrakuu haddaanu ilaahay doonin shirki may sameeyeen mashiicadu marar badan sidii aynu soo tilmaannay waa mashiico kowniya iyo mid sharciya macnaheedu waxa weeye wax ilaahay uu sii qadaray buu ahaaye uu sii ogaaye shirkigii uu hore ugu sii qoray inay gaalo noqonayaane uu sii ogaa unbay mareen adigana xafiidka amaanaan dhiginoo sida malaa'igta u ilaalin maysid oo camalkooda qori maysid laakiin wuxuunaad gaadhsiinaysaa risaaladda wamaa anta calayhim biwakiil fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaydir inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab walaa tasubuha caayina buu ilahay aladiina sanamyaashaha caayina yadcuuna min duuni illaah ay caabudayaan inta ilaahay ka sokaysa sanamyaasha ay caabudayaan ha caayina fayasubu llaha dabeedna ilaahay ay caayaan caduwan bikayri cilmin gardarro jahli ku salaysan daraaddeed kadaalika sidaasaa zayannaa likulli ummatin ummad walba waxaanuu qurxinnay buu ilahay yidhi camalahum camalkoodii baanuu qurxinnay uma ilaa rabbihim marjicuhum ilaahooda xaggiisu ahaaday halkay u noqonayaan fa yunabi'uhum bimaa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeen buu u warrami doonaa rabbi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu dadka qarcinayo ee uu wax u sheegayo ayaa waxa uu wax sheega ku dari jiray inuu sanamyaashooda wax ka sheego iyo itaaldarradooda iyo xumaanta ay leeyihiin oo aada maaragtay ugu dheeraan jiray ama asxaabta qaarkoodba ay aada u caayi jireen abu aalib bay u soo cawdeen mushrikiinta markaa waxay yidhahdeen maxamed hadduu ka dayn waayo cayda uu sanamyaashayada caayayo annaguna ilaahiisaanu caayi doona sidaasay yidhaahdeen markaa rabbi waxa uu halkan isbarbar dhigay maslaxadda iyo mafsadada maslaxad baa ku jirta in kuwaa la caayo si dadku uga tago laakiin mafsadada iyo dhibaatada ka dhalanaysa daraaddeed oo ah inay cayda ilaahay ay caayayaan
taa daraaddeed ha loo joojiyo caydii bahalahan la caayay macnaheedu taa ma aha in looga digo kuwan waa looga digayaa dadka xaqiiqadoodana waa loo sheegayaa inay gaalnimo yihiin waa loo cadayn ee laga aamusi maayo midhkase meesha la diidayaa waxa weeye erayada cayda iyo afxumadu ay ku ka sabab u noqon lahayd way kala duwantahay xaqiiqadooda oo la sheego iyo iyada oo hadal dee mutuxan lagu caayo marka digniini way jiraysaa looga digaya dadka midhkase la diidayaa waa erayada cayda ilaahay haddii ay caayaan idinkuna ha caayina kuwooda si kale oo dadka uga farsamaysaana uga digtaan mooyaane latakufanna can shatmi aalihatina aw lanashtimanna wanashtim aw lanashtimuka wanashtim maa yaamuruk adiga ilaahagaba waanu caayin doonaa bay haddaad ka dayn weydo sidaasi baa markaa ilaahay uu tilmaamay tallaabada la qaadayo ee lagu xaqiijinayo maslaxada iyo wanaagga wax mafsado ah iyo dhibaato ahoo lafjab ahoo ka dhalanaya waa inaanu jirin waxa halkaa culimmadu ay ka faa'iidaysteen qawaacidka fiqiga qaacido odhanaysa dar'ul mafaasid awlaa min jalbi almasaalix wixii mafsado ah ee dhiba dadka in laga joojiyaa ka horeynaysa maslaxad in loo baadi doono marka waa muwaasana bayna almasaalix waalmafaasid masaalixda iyo mafaasidda la isu miisaamaya markaase haddana masaalixda la isu sii miisaamaya teebaa maslaxad badan markaase haddana mafaasidda markay marayso ee meeshu wada mafsado noqoto wada dhibaato ayaa la odhanayaa talow dhibaatooyinka meeshu waa inoo wada dhibaatee dhib waa lama huraane keebaa khafiifsan yurtakab biakhafi lmafsadatayni biijtinaabi akbarihima labada dhibaato tayar waa in la qaata iyadoo taweyn markaana la iska ilaalinayo waaya sidaasi baa markaa sharcigu iyo caqliga saxiixa ay isu waafaqsan yihiin iyadoo la baadi doonayo danta iyo raaxada ummadda iyo wixii rafaad ku keenayo laga ilaalinayo waaya macnahan oo kale unbuu waafaqsan yahay amarkii saxiixa xadiidka saxiixa ku sugnaa ama xadiidkaas macnuhu ka warramayay ee uu nebigu uhi malcuunun man sabba waalidayn wuxuu uhi labadiisa waalid buu nebigu uhi qofka nacdala qofka caaya wuu nacdalan yahay labadiisa waalid qofka caaya wuu nacdalan yahay lacnad buu leeyahay marka asxaabtu maba aqooninba qofta intuu afka kala qaado labadii dhalay caaya dad miyir qabay ahaayeen oo iimaanku qanjaha joogo halka imika dee la arkayo dad dilaya oo caayaya oo dhib ku haya waalidka wama qofba sidee buu qofku u caayaya labadii dhalay markaa nebigu waxau uhi yasubu aba rajuli fayasubu abaahu wayasubu ummahu fayasubu ummah qof buu caayaya aabbihii qof buu caayaya hooyadii markaasaa isagana lasoo caayayaa kuwii dhalay oo la odhanayaa kol haddii aad aabbahay cayday dee adiguba aabbaha waxaa ku samey midbaa hooyadii la caayo isla markaasuu soo celiy yuhi hooyadaa waxaa ku samey waa qofkan cayda marka hore bilaabay ayaa labadiisa waalid in la caayo ayaa uu sabab u noqday islaamaha soomaalidu waxaabay odhan jireen cay geel jire allaw ha naga qadin maxay uga jeedaan geel jiraha waxa isugu yimaado un dee rag dumar isuguma yimaado geel jiro ma noqdo dumar sida qaalibka ah macnaheedu waxa weeye caydii geel jiraha hadday islaantii ka qado inan baanay lahayn wey oo way goblantay allaw aanaan goblamin bay u dhigantaa taasi cayddoonka ma ahee laakiin waxay meeshu ka turjumaysaa haddii rag iscaayaya anigu aan meesha la igu soo qaadi waayo bay tidhi inan baanan lahayn sawir noocaasay u dhacaysa waaye walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha caduwan bigayri cilmin halkaa waxaa kaaga muuqday cayda la caayaya ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaanta iyo ceebta iyo ayaan darrada iyo iimaan la-aantay leedahay isagoon sanabna caayayn xumaan kalena aan ka dhiidhiyaynin ka toos bal afka sabab ha u noqoninaba aayaddu leedahay ilaahay caydiisa sabab ha u noqonina balka afka kala qaadee caaye ka war muslimna sheeganaya inuu muslim yahay oo muslim ku abtirsanayo awoogii muslimaa kada wa kada boqolkiiba boqol muslim yahay qaar muslimnimadu marinji la mariyoon ka go-ayninba ayuu sheeganaya ilaahayna uu caayaya waa arrin aada iyo aada u khatar badan
wali way jirtaa sidii barigii hore waa laga yaabaa inaanay u badnayn be caayida ilaahay iyo rasuulka la caayayaa way badan tahay shakina ma laha cidina iskuma khilaafsana qofku inuu ku gaaloobayo oo naagtu ay ka furmayso oo murtad uu noqonayo hadduu toobad keeni waayo dilkii uu yeelanayo waxaynu ka faa'iidaysanaynaa aayadda tallaabooyinka aynu qaadayno inaynu nidhaahno talow diinta ilaahay iyo rasuulka iyo xaqa maxaa danaha ugu jira ta qofku uu ka fikirayaa waa taa weeye talow diinta maxaa maslaxada ugu jira tallaabada aad qaadayso talow miyaad ka daraysaa mise waad ka dooraysaa miyaad ka raynaysaa mise waad ka daraysaa inuu qofku saa u xisaabtamo weeye caqli la-aan bay noqonaysaa qof wixii caatifadiisu sheegaysay faraysa un inuu ku tallaabsado kadalika zayannaa likulli ummatin camalahum uma ilaa rabbihim marjicuhum fayunabiuhum bima kaanuu yacmaluun ummad walba camalkeedii sidaasaanu ugu qurxinay shaydaan baa u qurxiye laakiin waxa meeshii ka soo baxay markuu qofkani xumaantii doortay ayaa ilaahayna uu sii lumiyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum waxa laakiin ilaahay uu tilmaamay in dee la ystaba taagan yahay uma ilaa rabbihim marjicuhum ilaahay baa marjicooda halkay u noqonayaan hadde waa ilaahay markaasuu xisaabin doonaa waaya qaala allahu tacaala waaqsamuu billaah gaaladii baa ilaahay ka warramaya waxay ku dhaarteen ilaahay jahda aymaanihim dhaarahooda tii ugu adkayd iyagoon waxba la hadhin waxay ku dhaarteen lain jaa'atum aaya hadday mucjisa u timaaddo la yu'minunna biha inay rumayn doonaan qul waxaa tidhaa innama alaayaatu cinda allah mucjisooyinku ilaahay agtiisay ahaadeen ay ka yimaadaan isagaa bixiya ummaddii baa ilaahay ula hadlay nebigii asxaabta wuxuu uhi wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa mucjisadaasi idaa jaa'at markay timaaddo laa yu'minuuna inaanay rumaynayn waxaaba laga yaabaa inay rumayn waayaan wanuqallibu waanu gadiyaynaa oonu dabarogaynaa afidatahum quluubtooda wa absaarahum iyo indhahooda kamaa lam yu'minuu bihi sidii ay u rumayn waayeen awala maratin kolkii u horraysay wanadarhum waxaanu kaga tegaynaa fii duqyaanihim yacmahuun iyagoo ku duqyaanihim xadgudubkooda yacmahuuna iyagoo ku wareersan wuxuu ilaahay kaga warbixiyey iimaan la-aanta inay ku darsadeen ballanqaad beena dhaar iimaan la-aan iyo dhaar been ah iyo ballan beena intaasay isku dareen markaa waxay odhan jireen haddii mucjisooyinka aanu kaa codsanayno aad noo yeesho intaasaa walla naga yahay inaannu rumayn doono dabeedna maxaan idiin yeelaa kaa yeel oo kaa yeel dayaxa soo kala dilaacay waa la kala dilaaciyo indhahoodoo shanaa buu kusoo fadhiistay buuraha hareeraha maka ayuu kusoo fadhiistay isagoo dilaacay laba qaybooda waxay haddana yidhaahdeen waxaannu jecellahay buurihii baa nagu cidhiidhi noqday make bal inaad yar kala nafiisiso oo meeshan webiyaal iyo biyo iyo beera iyo wax ka samaysmaan marka haddii la daba socdo uun codsiyada noocaasa qofkan meeraysiga bilaabaya ee xaqa ka meeraysanaya qaanacaad u jeedin haddii codsiyadiisa la daba socdo in natiijo aan laga gaadhaynin baa aayadda ilaahay ummadda uu ka qanciyey kolkaasuu iyagana ku eedeeyey iimaan la-aanta iyo dhaarta beenta ah wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim lain jaa'atum aaya la yu'minunna biha jahda aymaanihim waa dhaarta halkii u adkayd intay mareen bay idhaahdeen haddii aayad inoo timaado aayaddu waa mucjiza waanu rumaynaynaa iyadaanu rumaynaynaa rasuulkana waa rumaynaynaa laakiin haddaba isbarax nebi maxamedowo awoodaanad lahayna sheeganin ilaa waxaa lay qul maa asalukum calayhi ajran wamaa ana min almutakallifiin nebiga saasaa ilaahay u tilmaamay adduunna idinma weydiisanayo ismana kallifayo waxaad tidhaahdaa aayaadku ilaahay baa bixiya aayaadka ilaahay baa bixiyaanuu gacanta kuma haystee ilaahayna cid meesha uu khayr ku ogyahay unbuu keenayaae dee mana aayad liidin ka cudurdaaro ummaddii nebiga lahayd bal maad u yeeshid codsigoodaah waa intay inagu soo biireenba si ay noogu soo biiraan ha cudurdaar dhammaysteene bal maantana kanay codsadeene maad ilaahay u weydiisid asxaabtii caynkaa lahaana laga qanci wamaa yushcirukum annaha idaa jaa'at laa yu'minuun oo maxaa idin ogeysiiyey hadday mucjisadaasi timaadda inay rumayn waayaan inay iskaba diidaan siday kuwii hore u diideen qofkuna haddii aanu xaqdoon ahayn looma cudurdaar dhammayn karo
mar walba waxa uu sheegtaa wuu sii soconaya wuu sii soconaya wuu sii wareegaya halkan nasiib darrada ku dhacday baa ilaahay uu ka warramay iyo macsiyadoodii sababtay keentay markuu qofku doorto diin la'aanta iyo macsiyada aahaarteedii iyo raadka ay kaga tagta waxa ka mid ah mid kale u dhiibta oo mid kale u dhiibta oo uu sii dhagabeelaa indhabeelaa ilaahay baa yidhi falammaa azaaquu azaaqa allahu quluubahum markii ay leexdeen baa ilaahay qalbigoodii u leexiyey aayaddanna taasay la macno tahayoo marka iyagu sidaa iimaan la'aantii u doorteen buu ilaahay yidhi wanuqallibu afidatahum wa absaarahum qalbigoodii iyo indhahoodaba waa gediyayna xaqa kuma jahaysna kamaa lam yu'minuu bihi awala mara sidii ay kolkii u horraysayba u rumayn waayeen kolka dambena u rumayn maayaan leannahu kolkii hore ayaa loo soo bandhigay kolkaasay diinla'aanta doorteen diinla'aantii bay doorteen kolkii ay diinla'aantii doorteenba macsiyadaasi macsiyo kale u sii dhiibtay kolkaasaa ilaahayna uu iskaba raaciyey wanuqallibu afidatahum wa absaarahum qalbigu waa gadinta oo sideedaba quluubtu ilaahay gacantiisay ku jirtaa nebigu ducadiisu waxay u badnayd calayhi salaatu wasalaam yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta ku sug buu nebigu ku ducaysan jiray waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kolkaasaa caaisha ay tidhi in badan baa ducadaa ku celcelisaa waxa uhi ina alquluub bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay u dhaxaysaa laba farood oo kuwa ilaahay ka midoo siduu doono u gediyaa siduu doono ayuu u gediyaa qof miyir qabay oo hagaagsanaa ayaad arkaysaa isagoo xaga kale uga tuuray oo diintii ka baxay ama faasiqoobay qof kale oo quus ahaa baad arkaysaa isagoo meel qimo ah oo sarraysa maraya ilaahay baa arrimaha gedgediya marka ilaahay waxaan baryayaa buuhi inaanu iga dhigin kuwa sida dhibta yar uga baxaya islaamka iyo iimaanka ama dee rasuulku tusaalaa buu yahay dadka oo waxa ay ku ducaysan lahayn buu u tilmaamaya wanadaruhum fii duqyaanihim yacmahuun duqyaanku waa kibirka iyo xadgudubka oo iimaan la'aantaa kibir badan iska leh gaalnimada iyo kufriga ayuu kibir ku dhammaadaa leannahu qofku naftiisu waxay tahay ma garanayo meel laga abuuray iyo meel ay ku socotay iyo xaq ilaahay uu ku leeyahay toona ma garanayo marka kibirka waa waxyaabaha soo laasima kufrigu haddii uu waayo awood waabiso oo jihaad ku waabiso dee waxa macruuf ah in duqyaankanuu ilaahay uu sheegaya iyo indhala'aantan wada socdaa kolba meel ay ka qarxaan kolba meel ile qofkan kale tawaaduc iyo iimaan iyo cadaalad iyo waxbaa joojinaya kan kale waxba ma joojinaya waxaa inooga muuqanaya aayaadka ummadda ilaahay inuu ku qiimaynayo sida ay u guddoontaan ay u raacaan manhajkii keebaa raacay keebaa diiday iyo ka diiday faalladuu ilaahay ka bixinayo waxaa sii fasiraya qisada ama manhajiyadana aayaddu ay ka warramayso aayaadka bilowga waa suuratul insaan alla tacaala insaan ilaahay baa wuxu uhi innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaaj candhuuf yar baanu ka abuurnay insaankii oo tii aabbaha iyo hooyada ka kooban nabtaliihi baa markaa la socota waana la imtixaanayaa waa imtixaanaynaa imtixaankii sidee buu dhacay lama imtixaaninun isagoon aaliyad haysanin aaliya agabku ku geli lahaa imtixaankan adduunyada lagu marinayo ayaa ilaahay u dhammaystiray agabkaasoo caqli iyo cilmi leh markaasaa ilaahay uu yihi caqligiisoo ka warramaya fajacalnaahu samiican basiira waxaa ilaahay uu ka dhigay qof wax qiimayn kara oo arag iyo maqal oo caqliyad leh cilmigiina markaasuu ugu daray innaa hadaynaahu asabiil waa hanuunkan ilaahay uu dadka ku qiimaynaya aayaadkani ay ka warramayaan jidkiina waan tusiya waxaan ku idhi waddaduna waa taa caqligii waad leedahay cilmigiina waad leedahay imtixaankiina wuu ku jiraa markaasaa la eegayaa talow doorashadiisii maxay noqotay innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran imaa shaakiran wa imaa kafuuran waa doorashadii markii dabeedna imtixaankii la xusay mid ku dhacay iyo mid baasayba waxa ku sii xigaba abaalkii haddana imaa shaakiran wa imaa kafuuran innaa actadnaa lilkaafiriina salaasila waaqlaalan wa saciira kuwii markaa kafuurka noqday abaalkiisu waa naaraha iyo silsiladaha kii shakuurka noqdayna ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kaana misaajuha kaafuura
marka tartiibkaasay u soconaysaa noloshii baa ilaahay qofkii u hibeeyuu siiyey imtixaankaasuu maray aaliyadii iyo wixii uu isticmaali lahaa imtixaanka uu isticmaali lahaa uu ku gudbi lahaa baa loo diyaariyey kadibna waa la eegay camalkiisii jazaagii baa ku sii xigay marka saasay isu daba haysaa meeshaad ka timi iyo waxa aad u joogto iyo halkaad ku dambaynaysaa isku xidhan waaya juska 8aad baa halkan ka bilaabmaya aayadda 111 qaala allahu tacaala walow annanaa nazalnaa buu ilaahay yidhi haddaannu ku soo dejin lahayn ilayhim gaalada wax codsanaya almalaa'ikata malaa'igta haddaannu ku soo dejin lahayn ay codsanayaan wa kallamahum ulmawta kuwa dhintayna ay la hadli lahaayeen waxasharnaa calayhim aanu ku soo ururin lahayn kulla shayin wax walay codsadeenba qubulan iyagoo hortaagan oo arkaya maa kaanuu liyu'minuu mabay rumeeyeenba ilaa an yashaa allaahu inuu ilaahay doono mooyaane walaakina akarahum yajhaluun intooda badani waa jaahiliin sidaasaa ilaahay uu tilmaamay oo waxaan ay codsanayaan waxa ku jiray maxamed keligii buu socdaa malaa'iga ha u markhaati furto ilaahay ka socoto fariinsidayaalahoo yidhaahdo waa run buu sheegayaae ka qaata malaa'igtaasi ha timaado mar kale waxay codsan jireen qaar baa naga horreeye oo dhintee bal aakhiraha ka soo warramaan aakhira in badan buu maxamed wax ka sheegaye bal kuwa ah soo noole odayaasha iyadii dhintay si ay warbixin u keenaan si ay u idhaahdaan waa xaqa raaca mar kale waxay odhan jireen ilaahay ha noo yimaado ha noo sheega in adugu aad rasuulkiisii tahay sidii reer banu israa'iilba ay ku xidheen xataa nara allaha jahra ku rumayn mayna ilaahanu ilaahay aragno ama rumaysan mayna ilaahanu ilaahay aragno waa intaasoo ay codsadeenba haddii la isugu daro may rumeeyeenba ilaahay qofta ilaahay u qadaray waa halkiisa ilaa an yashaa allah walaakina akarahum yajhaluun jahligaasaa meesha yaalla jahliguna waa cudur aad u dilaayahoo khatar badan masiirka iyo mustaqbalka qofkana lumiya walow annanaa nazalnaa ilayhim almalaa'ika haddaannu malaa'igta ku soo dejin lahayn soconayo nebi maxamed u markhaati furaya wa kallamahum ulmawta kuwii dhintayna ay la hadli lahaayeen aabbayaashood awowyaashood ay odhan lahaayeen waana kan soo noolaanay sidii aa codsanayseen oo ilaahay soo noolayn laha waxasharnaa calayhim kulla shayin wax walay codsadeenba aanu u soo ururin lahayn qubulan cayaan muwaajaha waa muqaabala iyagoo arkaya qubulan waxay sheegaysaa iyagoo qaabilsan oo ilaahay uu la hadli lahaayo malaa'igtiisu hor iman lahaydo maa kaanuu liyu'minuu ilaa an yashaa allah saasaa ilaahay uga quuskoynaya marka waxba ha codsanina muuminiinta haddaatiinu ha ku celcelinina waar garab iyo gaashaan bay noo noqon lahaayeene miyaa loo yeelo waxa ay codsanayaan marka dadka waxaa ina saaran xaqa in la oogo laakiin cudurdarrada faraha badanee dadku ay aad u soo qadimaan iyo marmarsiyaha fara badan haddii lagu warwareego dhib badan baa ka imanaya wakadaalika buu ilaahay yidhi saasoo kale sidaa nebi maxamedow cadow badan aad u yeelatay jacalnaa likulli nebiyin nebi walba waxaanu u yeelnay cadowan nebi waliba cadow buu lahaa ku foogan oo ku jahaysan shayaaiina alinsi waljin jinka iyo insiga shayaaiinta iyaga ka yimaadaa rasuul walba cadow u ahaa yuuxii bacduhum ilaa bacdi qaarkoodba kuwa kale waxay u waaxyoonayaan ay ku waswaasinayaan zukhrufa alqowl hadal la qurxiyey quruuran iyagoo tagayo oo kadinaya walow shaaa rabbuka maa facaluuh hadduu ilaahay doono may sameeyeen ilaahay baa qadaroo sameeyey fadarhum iskaga tag wamaa yaqtarifuun iyo waxa ay abuuranayaan walitasqaa ilayhi iyo si ay ugu dhagraaricisay u dhagaysato afidatu ladiina kuwii qalbiyaashoodu laa yu'minuuna bilaakhira kuwaan aakhira rumaynaynin qalbigoodu si uu u dhagaysto ayaa hadalkaa ay qurxiyeen ay isugu sheegayaan waliyardawhu iyo si ay raalli uga noqdaan kuwa iimaanlaawayaashu waswaaska shaydaanka waliyaqtarifuu iyo si ay u abuurtaan maa hum muqtarifuun waxay u abuuranayaan waxa been abuuradka ay samaynayaan halkan waxaa rabbi uu tilmaamayaa rususha ilaahay ee ugu fadli badan khalqiga ilaahay u abuuray oo dhan in caadi ay iska hayd in la colaadin jiray
waraqat ibnu nawfal ninkii la odhan jiray wuxuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markii uu ka dhagaystay waxyiga nabiga loo sheegay wallee waa lagu colaadin doonaa buuri way wanaagsanaan lahayd waxbaan kuu tari lahaa haddaan noolaan lahaa wakhtiga lagu colaadinayo oo miyaa lay colaadinayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaa la isaarayaa haa buuri qof waloo la yimaada xaqan aad adigu la timid waxa iska caadiya in la colaadiyo waa macruuf weeye marka meeshii dhib badan baa nebi maxamed ku dhacay uu laba yaabayba wuu la yaabay markaasaa waxa uu leeyahay sideebay u liibaani doonaan qolo nebigoodii sidan u galay kayfa yuflixu qawmun facaluu nebiyahum haada qolo nebigoodii sidan u galoo dhiig ka sii daayay sideebay u liibaani doonaan laysa laka min alamri shay-un waa ka ilaahay ka qancinaya aduu gaadhsiiyu marka meeshan cadaawad baa ka dhacday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam makaa laga soo eriyey madiinaa loogu tegay bal intay isu jiraan meeshaa saxraaga intaa masaafadda intaa leeg ayay ka daba tegeen waxaa lagu bilaabay beder waxaa lagu xigsiiyey uxud waxaa lagu xigsiiyey khandaq ilaa nagta ay u xarfiyeen cadowga ay quusiyeen waa la daba taagnaawo masaafadda intaa leeg ee bilku dhowaad la soconaya intay sii kolonyaysteen waxaasoo dhaqaalaana ay ku bixiyeen ayay halkaa dul tegeen iyagoo ka warwarsan diintaa xaqa ah ee in fara badan ay isku dayeen inay joojiyaan inaanay joogsanayn laakiin nuurkaasi sidaa u soo baxay wuu fidayaa waan halkaa ku joogi maayo dib uu inoogu soo fidayaa ee aan xarbul istibaaq ku samayn aan ka hortagno ayay ahayd laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku filaaday awliyadiisa marka cadaawaddaas mid u dhaxaysa weeye dadka mu'miniinta amar walba iyo qofkaan iimaan lahayn in badan ba la isku daya in la asturo oo magacyo kale loo bixiyo oo la yar warwareejiyo oo afka laga dhowro laakiin haddana waa adiga arkayo casrigan aynu taaganahay oo ay yidhaahdeen cadaawad diimeed iyo mid manhaj iyo mid waxaasi ma jiraan ee caalamku wuu horumarayo sidaasoo insaaniyad iyo waxaasi baa jira waxa aad arkaysaa gaalada noocyadooda kala duwan kuwooda madaxda ah cadaawaddii baa ka soo yeedhyeedhay ayaa ka soo neefneefaysa qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfi suduuruhum akbar saa ilaahay baa inooga warramay subxaanahu wa tacaala waaya waxa labaad oo aayadda aynu ka faa'idaysanaynaa cadaawaddan asalkeeduna sida qur-aanku uu tilmaamayo waa xasadan min cindi anfusihim waa xasad qofkii wuxuu arkayaa waxa aad haysataa inuu yahay wax weyn isaguna uu ku guulaysan laayahay aad kagana hormarayso haddaad diintaada raacdood ilaahaaga ka tala qaadato waad ka horumaraysaa waad ka dheeraynaysaa leanna meel kale markaanu eeginba taariikhdiibuu hayaa taariikhdii baa la hayaabaa saa darteed xasadan min cindi anfusihim xasadkaa daraaddii baa marka ay isku dayayaan in diib lagu reebo ilaa waxaad sidataabaa ka qaalisan wuxuu sitee adiguna waxaad sidataa manhajkii ilaahay ista badeecaddii shaydaanku sitaa marka xasadka taasaa sabab u ah asalka cadaawaddan ayaa qur-aanku inoo tilmaamaya waaya wax labaadoo aayaddu ay xusaysaa sida awliyada ilaahay ay u jiraan awliyaa uraxmaan siday u jiraanba awliyaa shaydaanna ay u jiraan shaydaankuna wuxuu leeyahay qaar asxaab u ah oo taageerayaal u ah siduu ilaahayba u leeyahay qaar awliya u ah oo isaga iyo diintiisa taageerayaal ah xaqa taageerayaal ah taana la dafiri kari maayo dee naskiiba cadaynaya halkan xusaya waxa kaloo ilaahay uu tilmaamay bal sida ay u wada xidhiidhaan shaydaankii awliyadiisu shaydaan marka la leeyahay insi iyo jin labadaba inuu ku jiro ayay aayaddu tilmaantay ilaa waa sharwadeen qof sharka u banbaxay oo khayrba ka soo fulaynin shar mooyaane kaasaa shaydaan insiga in badanoo ka mid ah ka shaqo badan shaydaanka oo tallaabo dhaqaalihiisa iyo cilmigiisa iyo xooggiisa waxaba ifsaad u isticmaalaya waxa uu shaydaanku qabto wax ka badan qabanaya marka labadaa qore ee shayaadiintahay cadaawaddaa way ka midaysan yihiin habkay u wada xidhiidhaanna ilaahay baa tilmaamayoo waxyi buu ka cabiray waxyi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli quruuran waxyigan maaha waxyigii hagaagsanaaye waa waxyulwaswaas alladii yuwaswisu fii suduuri nnaasi min aljinnati waannaas waxyi nasku waa ku sheegay laakiin waxay waxyiga iska shabahaan hoosu sheegidda waxyigii rasuulka hoos baa lagu sheegaya
shaydaankuna saaxiibkiisan hoos buu ugu sheegayaa ku akhriyaya waxa uu sheegayaa waa wax aan qurux lahayn madow oo fool xun waa baadilba laakiin wuu u macaanaynayaa waa u qurxinayaa yuzakhrif zukhruf alqawl qururan sida marka nasku uu tilmaamayo qofka shaydaan wax ka soo naqilaya wax wanaagsan kama soo naqilayo fadanhum wama yaftarun iskaga tag iyagiya waxay abuuranayaan marka qofku hadduu shayaadiinta xidhiir la leeyahay in wax laga qaato ama fariin uu soo gudbiyey la qaato ama wax uu yidhaahdo waxbaan ku daweynayaa laga qaato halkaa inaga dhig dadka qaarkood baa yidhaahdo rawxaan iyo jiman ayaanu leenahay oo dabeedna waxbay sheegaan markaa hebelka dawadiisu waa caynka alaabtaasaa la xado waa caynka hebelkaasaa sarxay waxaasay akhriyaan dee saad ku rumaysanaysa waa kaa ilaahay yidhi fadarhum wamaa yaftaruun wixiiba waa been abuurad weeye halka uu ka duulaya waa ifsaad iyo isku dir lama qaadan karo qowlkiisa waa min kibaar ilfusaaq faasiq hadalkiisa ha qaadanina insiya baa layidhi kanna waaba fusaaqdii u weynayd weeye aan looga qaateenka ahayn marka ay shayaadiintu saaxiibadooda u warramaan insiga ah ay waswaasiyaan siyaabaha ay u dhagaystaan iyo waxay ka dhaxlaan baa ilaahay u xusay walitasqaa ilayhi waxa hadalkaa musakhrafka ah ee baadilka ah dhagaysanaya afidatu aladiina laa yuuminuuna bilaakhira kuwan aakhira rumaynayn qalbigoodu u dhacaa laakiin qof iimaan leh qalbigiisa uma dhaco waswaaska shaydaan waliyardawhu iyo inay ka raalli noqdaan kii loo waxyoodaa raalli noqonaya waliyaqtarifuu maa hum muqhtarifuun waxay been abuuranayaan wixii ay been abuuranayeen kuwa loo waxyooday shaydaankii markuu kan u xambaariyo raalli buu noqonayaa waxbuu kusii dardarayaa wuxuu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam shaydaanku markuu kelmad xagga kore ka soo maqlo kaahinka faaliyaha intuu u yimaado ayuu u dhiibayaa 99 u raacinaya faaliyuuna intaa in leeg buu kusii darayaa waxaasaa markaa dadkii gaadhaya digniintaasaa ilaahay u bixiyey waxaynu halkaa ka qaadanay arrintu inay laba mid un tahay imaa inuu qofku noqdo weli ilaahay waxyigana raaca oo waxaa hogaaminaya ilaahay ku xidhayaa waxyiga uu noqdo wa imaa inuu noqdo weli shaydaanku wuxuu ka iibinayaana uu noqdo waswaaskan iyo sixirka suuratulbaqara aayadda 111 meelahaas eeg aayaddii dheerayd ee sixirka markii reer banu israa'iil ilaahay uu tilmaamay inay tuureen kitaabkii waxa uu ku xigsiiyey wattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan waxay raaceen sixirkii jiray wakhtigii nebi sulaymaan ayay raaceen markay kitaabkii tuureen qofku wuu u baahan yahay shay uu aamino waa u baahan yahay wuxuu ku qalco wuu u baahan yahay wuxuu raaco marka hadduu diin noqon waayo waxaa kaluu noqonaya afa hayr allah ma cid aan ilaahay ahayn ayaan abtaqii raadiyaa xakaman mid idin xukuma ma cid aan ilaahay ahayn baan idinka raadiyaa kama raadinayo wahuwa aladii waa ilaahi anzala ilaykum alkitaab qur-aanku idiin soo dejiyey mufasalan iyadoo la saafsaafo la caddeeyey qur-aanka waaladiina aataynaahum alkitaab kuwaanu siinay kitaabka towraad kii kan ka horreeyey yaclamuuna waxay garanayaan annahu qur-aanku munazalun min rabbik ilaahaaga xaggiisa inuu yahay bilxaqina ku soo degay falaa takuunanna min almumtariin adigu ha ka mid noqon nebi maxamed oo kuwa ka shakeeya qur-aanka ama qofka muslimkee lala hadlayo ha shakiin watammat way dhammaystirantay kelimatu rabbika ilaahaaga qur-aankiisu waa dhammaystiran yihin sidqan wa cadlan run ahaan iyo cadaalad ahaanba waa dhammaystiran yihin laa mubadila likalimaati ilaahay kelimooyinkiisa lama doorinayo yaan la doorinin wahuwa asamiicu alcaliim ilaahay kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon weye sidaasiba had iyo jeer insaanka iyo ummadda waxa ilaahay uu ku qiimaynayaa waa waxyigaasuu ku qiimaynayaa waxyigaa baa lagu qiimaynaya marka su-aal baa ilaahay uu soo dhigo wuxuu uhi dadka la hadal nebi maxamed oo waxaad tidhaahdaa warma waxa aan idiin raadiyaa xakam aan ilaahay ahayn xukum aanka ilaahay ahayn iyo xakam mid wax xukumo aan ilaahay ahayn miyaan idiin raadiyaa in ilxukmu ilaa lilaah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah xukumka ilaahay baa iskale isagaana xaakima isagaana ugu xukum wanaagsan leannahu wuxuu yaqaanaa dadkan uu abuuray waxa ku wanaagsan
anzala ilaykum alkitaaba mufasala marka halkaa waxaad ka aragtay xukumka halka laga qaadanayaaba kitaabkan cad ee mufasalka la saafsaafaya waxa ilaahay uu xusay kitaabkani inuu yahay mid markhaati haysta wuxuu markhaati ka helayaa culimadii reer banu israa'iil ee yaqaanay towraad iyo injiili والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق sidaasaan ay haydba oo intoodii rumaysay rasuulka way ka markhaati kaceen waxyigan laba midnaba laguma diidi kara kitaabka isagoo mufasala waa mid oo cadoo ay ka muuqato kalaamkii ilaahay inuu yahay iyo iyada oo markhaati uu ka haysto dadka waaqica idinkula nool ee ummadii hore kutubta haysteen labadaaba ilaahay kitaabkiisana uu sii ammaaray dardaaranna wuu raaciyey digniinna wuu ku xigsiiyey kitaabkiisu inoo dardaarmayoo ayuu ammaanay wuxuu uhi watammat kalimatu rabbika sidqan wa cadlan ilaahay kelimada uu ina siiye waa kalaamkiisii oo hayna marka kelimada ilaahay way dhammaystiran tahay sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam wax alla wuxuu idiin warramay waa sidqi wax alla wuxuu idiin xukumayna waa cadli qofkii run doonaya waa halkan qofkii cadaalad doonaya waa halkan dardaaranka ilaahay uu ku xigsiiyey waxa weeye laa mubadila likalimaati illaah yaan la doorinin ilaahay kalimaadkiisa siday u dhigan tahay eraygu u dhigan yahay waa khabar war ahaan kalimaadka ilaahay lama dooriyo laakiin waxay u socotaa nahyi iyo diidmo laa mubadila likalimaati illaah ilaahay kalimooyinkiisa yaan la doorinin lafdigooda iyo macnahooda midnaba saasaa ilaahay waa runtiibuu keeno cadaaladiibuu keeno hanuunkiibuu keenay marka yaan la doorin wahuwa samiicu alcaliim waxay sheegaysaa hadda uu idin maqlayaa uu idin ogsoon yahay iska sheegasho ma soconaysa ee ku raacay cadaaladii runta iyo ku diidayba ilaahay uu kala ogsoon yahay wahuwa samiicu alcaliim wain tudic haddaba haddii aad nebi maxamed oo ka tala qaadatood aqbasho akara man fi lard dadka dhulka ku nool intooda badan yudiluuka can sabiili illaah ilaahay jidkiisa toosan way kaa luminayaan in yatabicuuna ila danna male mooye wax kale ma raacayaan wa in hum maa hum iyagu may ahaanin ilaa yakhrusuun waa kuwo wax qiyaasaya ugu dhowaan ayay ku socdaane xaqiiqa ma hayaan inna rabbaka ilaahaagu huwa aclamu isagaa ogi badan man yadilu can sabiili qofka jidkiisa ka lumaya wahuwa aclamu bilmuhtadiin kuwa hanuunayana aad buu ogsoon yahay sidaasi baa ilaahay isugu barbarwadaa subxaanahu wa tacaala waxaad halkaa ka arkaysaa inuu ilaahay aad u jecel yahay addoommuhu inay hanuunaan oo ay hagaagaan oo ay janno galaan oo aanay naar gelin ayaa ilaahay aad u jecel yahay tilmaan oo dhan buu u dhameeyey dadka ilaahay wuxuu ku jiheeyey oo uu ku xidhay kitaabkiisan kaliimka ayuu ku xidhayaa dadka nabigu dardaarankaasi ummadda siiya wuxuu yidhi war waxaan idinka tegayaa shay haddaa qabsataan aydaan lumayn kitaab allah war waa ilaahay kitaabkiisa haddaa ka run sheegtaan oo qabsataan waar lumi maysaan buu ilaa cudurka u badane ummad ku dhaca waa ambashada iyagoo xag ay ka yimaadeen iyo xag ay ku socdaanba kala garan waaya asqooba iyagoo dadku asqooba hadday asqoobaan maqsuudka ma gaadhaan dadku halkay ku socdaan kitaabkaasaa ilaahay uu ku celcelinaya kitaabkaa inta ay u jiraan dadku ayay u jiraan cisiga iyo sharafka markii kitaabkii aynu soo aragnay ammaantii iyo amarku ilaahay nagu siiyey iyo dardaarankii iyo digniintii iyo wixii oo dhan ka kitaabkan raaci waaya muxuu raacayaa dee badeecaddii shaydaanka iyo fasaadka dadka kitaabkan diiday ayaa ilaahay uu ka digay ilaa way baaqayaan yeedhbadooda way dheerta kama daalayaan dhaqaalay ku bixinayaan markaasaa ilaahay uhi wain tudic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah dadka ku nool dhulka intooda badan haddaad raacdo ilaahay jidkiisa waad weydaaran aayadda kusii xigtee 19 mid udhaxaysana ama laba udhaxeeya waina kaiiran la yudiluuna biahwaa'ihim ayaa ilaahay uu ku xigsiiyey dadka intooda badanina rabitaankooda ayay dadka ku luminayaan akaru nnaas ilaahay dadkan isaga abuurtay oo kala yaqaana marka akaru nnaas ha daliishanin alaqlabiya wa xukmu alaqlabiya
inaanad waxba daliishanin laakiin waxa aad daliishanaysaa uu diin noqdo iyo daliilka xaqa ah weey sida aad arkaysa shaydaan bay u raran yihiin intooda badani oo ballantiisii ku fuliyeen ilaahay baa sababeeyo cilmi ma hayaan xaqiiqo ma hayaan laakiin yattabicuuna illa dhanna waynhum illaa yakhrusuun dhannigu waa waxa weeye malaha waxaas waa sida ama waa sida khirsiguna waa qiyaasta waxaa la yidhaha kharsu nakhiil geedka had iyo jeer midhaha saaran ayaa qof loo diraa khabiirahoo beerwala ah markaasuu qiyaasaa inta ka soo go'aysa nebiguna rag buu ku shaqaalaysiin jiray oo sidaa wax ku hagi jiray marka waa ugu dhowaan ayaa la yidhaahdaa ugu dhowaan wuxuu noqonayaa waxaa sidaa xaqiiqo lama hayo waa ugu dhowaan weyn marka qof diintiisa iyo waxa uu ku socdaaba uu malamala yahay oon xaqiiqo haynin kaaha raacin ee waxyigan raac halkaa waxaa ku baxay waxaan imika la yidhaahdo cawlamada waxa aad u badan waqtiyada dambe alcawlama oo gaaladu in fara badan ay soo celceliyeen waxaas waa caalami haddaad aragto qof aad ugu celcelinaya waa la sitaa qofkaas wuu soo silan yahay qiimayntii baa ka lunta dagaaladii iyaga dhex mara yurub iyo galbeed waa caalami cudurrada ka dhaca waa caalami maxaanku idhahdaa go'aanka ay qaataan waa caalami bulshada rayidka iyo bulshada caalamku waa iyaga cid kale maaha qaaradaha kale la tirin maayo dagaaladaynu inagu islaynay caalamina maaha gobolna maaha cidina ma soo hadal qaato waa dagaal ama qabiil ama gobol ka dhacay mawaaqifta aynu qaadanaa caalami maaha qaaradaha kaleo dhan haddii la ysku daro marka akaru naas inaad ku xisaabtantoo tidhaahdo war waxaasaa caalamiya marka cibaarada casriga la qaato dadku sida ay akaru naas u isticmaalaan ay u daliishadaan waa caalami weyn arrimaha caalamka iyo beesha caalamka iyo kudhuugadhaadaasumaad ka maqlaysa iyagoo meelaha kaga celcelinaya wax la isku harawsaday noqoto waayo waxa laga yaabo ururada qaarkood baa ayaa caalami lagu sheegaa laba dowlado ingiriiska iyo maraykanka oo qurina leeyihin marka in aan had iyo jeer taa la daliishanin laakiin lagu xisaabtamo war maxaa ilaahay raalli ka yahay maxaa qiyam iyo miisaan leh maxaa lagu nabadgelayaa aakhiro maxaa mabda'eenna xaqahi u yahay saa in loo xisaabtamo wey ina rabbaka huwa aclamu man yadilu can sabiilihi wahuwa aclamu bilmuhtadiin ilaahay baa kala yaqaana kuwa jidkiisa ka lumaya kuwa ku hanuunsan waxay taasi tilmaamaysaa ilaahay ka tala qaata dadka lagu dayanayo iyo kuwa laga baydhaya ilaahay baa yaqaana marka ilaahay dadkan abuuree kala yaqaanay tilmaantiisa qaado kolka kuwii hallaabayba haddaba bal siyaabaha u hallaabeen iyo wax badanoo faalla a ilaahay uu ka bixinaya waa dhaqamadii liitee carab ayaa qaybihii u horreeyey halkan ilaahay uu ka xusaya muuqaalkay carab ilahayd islaamka ka hor alla wuxuu idhi fakuluu cuna mimaa shaygii cuna dukira smullaahi calayh ilaahay magaciisa waxa lagu gowracay cuna in kuntum biaayaatihi mu'miniin haddaad rumaysantihiin aayadaha ilaahay wamaa lakum ayu shayin habata lakum maxaa idinku dhacay dee maxaa idinka hor jooga allaa ta'kuluu inaydaan cunin mimaa dukira smullaahi calayh ilaahay magaciisa wixii lagu gowracay maxaa u cuni weydeen waqad fasala lakum ilaahayna wuxuu idiin cadcadeeyey maa xarama calaykum wixii uu idinka xaaraantinimeeyey wuu idiin caddeeyey ilaa ma durirtum ilayhi wixii la idiin baahiyey mooyaane wixii la idiin dhibgeliyee u baahataan ee xaaraanta ah kaa mooyaane waa cuni karta wa inna kaiiran in badan dadka caalamka ku nooli la yudiluuna way luminayaan dadka biahwaa'ihim rabitaankooday ku luminayaan biqayri cilmin jahli baanay ku luminayaan inna rabbaka huwa aclamu bilmuctadiin ilaahaagu aad buu ogi badan yahay kuwa xadgudbaya idiin tilmaan dhaqamadooda carabta waxaa ka mid ahaa inay kala jeclaayeen bakhtiga iyo birsolka bakhtiga ka bakhtiya neefka bakhtiya iyo ka birsola ka bakhtiya jeclaayeen ismiga ilaahay kumay gowrici jireen ismiga sanamkay ku gowrici jireen bismi laata walcuzza markaasaa si guud ba ilaahay ummadda ula hadla wuxuu idhi magaca ilaahay waxa lagu gowracay cuna haddaa iimaan leedihiin wuu canaantayoo
wuxuu ku canaantay maxaa u cuni weydeen ka magaca ilaahay lagu gowracay ee sida xalaashaa loo gowracay ee bakhtiga u cunaysa waxay isku qancin jireen ila shaydaan baa u waxyooday zukhruf alqawl shaydaankii baa wuxuu u waxyooday zukhruf alqawl markaasaa waxay odhan jireen kan bakhtiyey iyo kan birta la mariyey bisinka loo qabtay waxa wanaagsan kan bakhtiyey baydha leannahu iskamuu bakhtiinuune naftu way iskaga jiri lahayduune mindi dahabiya sikiin dahabi mindi dahabiya ayaa gowracdo u qarsoon bay odhan jireen mindi dahabiya u qarsoon kan bakhtiyey kana bani aadan baa gacanta saaray oo ku dhagaroobay gacanta ilaahay baa ta aadamaha ka wanaagsan waa falsafad aad iyo aad u ladii waa zukhruf alqawl shaydaankii baa saa u qurxiyey war kan ilaahay baa dilay kana bani aadamkaa dilay marka kan ilaahay uu dilay ayaa wanaagsan buu ka dhaadhiciyey dabeedna waxay odhan jireen baksigaaba wanaagsan waa kan ilaahay canaantay yidhi wamaa lakum anlaa ta'kuluu maa yamnacukum an ta'kuluu maxaa idiin diiday inaa cuntaan mimaa dukira ismullaahi calayh wixii magaca ilaahay lagu gowracay maxaa u cuni weyday ilaa qof muslimaan laguma canaananayo dee qof muslimi wixii uu gowracaya magaca ilaahay buu ku gowracayaaba canaantani waxa ay ku dhacday ciddii shaydaanku waxyiga uu siiyey bakhtiga xalaashanaysa wixii xaaraantaha horaa laydinku sheegay wixii u dhibaatootaanna xaaraanta ka mid ahaana dee in daruuro daraaddeed iyo baahi daraaddeed laydinku xalaaleeyey laydiin soo sheegay in badanna ha raacina oo dadka ka mid ah eg yadiluuna iyo yudiluuna baa jira mar haddii yaadu godan tahay ficilkii baa mucadda ah macnihiisu waxa weeye wa inna kaiiran min annaas in badanoo dadka ka midii la yudiluuna ay naas dadkay luminayaan waxay ku luminayaan waa maxay biahwaa'ihim haddii hallowba la arko hawaa soo gasha haddii hanuunba la arko waxyigaa soo gala hawada iyo hallow waa islaasima biqayri cilmi marka ka feejignaada alla wuxuu uhi wadaruu iska daaya daahira alithm dembiga kiisa muuqda wa baadinahu iyo kiisa qarsoon ina aladiina yagsibuuna alithma dembiga kuwa shaqaysanaya sayujsawna waxa lagu abaalin bimaa kaanuu yaqtarifuun waxay kasbanayeen bimaa kaanuu yagsibuun waxay shaqaynayaan waan ka abaalin doonaa buu ilahay walaa ta'kuluuha cunina mima dukira ismullaahi calayhi magaca ilaahay walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi waxa aan magaca ilaahay lagu gowracin ha cunina wa innahu la fisqun waa alla ka fogaansho wa ina shayaaiintu la yuuxuuna way u waaxyoonayaan ilaa wliyaa'ihim kuwa gacalkooda ah ee insiga ka mid ah liyujaadiluukum si ay idinla murmaan wain adactumuuhum haddii aad ka tala qaadataan innakum la mushrikuun dee gaalaa u baxaysa waxaad halkaa ka arkaysaa aayaduhu waxa ay ku celcelinayaan usuul alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq wa dirwatu sanaami alakhlaaq usuusha akhlaaqda kurusamaanka akhlaaqda iyo hooyada akhlaaqda waxaasoo dham iimaanka isugu soo ururaya daahir alithmi wa baatin alithmi asalkiisaba cudurrada dadka ku dhaca ayaa qaarkood qalbiga ay ka yimaadaan waa daahir baatin alithm qaarkoodna xubnaha muuqduu ka sameeyaa labaduba midna waa daahir midna waa baatin daahir alithm waa dembi muuqanayo oo dadku arkaya oo lagaba yaabo kii sameeyey inuu ku faanayo baatin alithm dembiga kiisa qarsooni waa qof isla bal dadka iska qariyoon ilaahay iska qarinayn yakhtafi min allah walaa yakhtafi min annaasi walaa yastakfi min allah ilaahay iskama qarinayo marka kaasina baatinul ithm ayaa isaguna uu ku jira labada qayboodba inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan dembiga qarsoon iyo ka muuqda labaduba waa xaraam midna xalaal maaha dembika shaqaystuu ku kooban yahay sayujsawna bimaa kaanuu yaqtarifuun iqtiraafku waa shaqadii qof waliba wuxuu kasbaday buu kiiskaa ilaahay baa ku qaaday waxa uu ku soo celcelinayaa rabbi magaca ilaahay ismigiisa in wax lagu gowraco waa waajib miisaanka aayaadku u yeelaan marka aad aragto fuqahada inkastoo qaarkood ay xusaan inuu sunno yahay bisinku marka la gowracayo in bisinka loo qabto haddana kolkaad aragto aayaadka iyo axaadiidta sida ay u dhacayaan iyo miisaanka ay u yeelayaan inuu waajib yahay qowlka odhanaya ayaa runtii rajaxan
waxaad arkaysaa oo kale gowracu inuu yahay cibaada qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin markaynu xidhanayno ducooyinka la akhriya ka mid aayaddaas inna salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii iyo geeridayda lilaahi rabbi alcaalamiin intaba ilaahay baa leh isagaa i dilay isagaa i noolayn isagaa i nooleeyo i dilaya isagaan u tukanayaa isagaan u gowracayaa marka sidaasay tahay inaan lagu ciyaarin loona arag wax caadiya laakiin ilaahay loo daaya subxaana lidaalik ba haddii wax la gowracayo aan la odhanayn hebel baa loo gowracaya waxaanaa la gowracayo odaygii dhintay baa loo gowracaya ilaahay daraaddii baa loo gowracaya laakiin sadaqabaha lagu sheego hebel baa loo gowracaya waxa ka saxsan ilaahay baa loo gowracaya subxaana loo cibaada waxa nasku uu xusay haddii shaygaa bisinkaba laga tago in aan la cunayn laakiin kan imika halkan aayaddu ay sheegayso walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi waxa ilaahay ku sababeeyey wa innahu la fisqun waa alla ka fogaansho ayuu ku sababeeyey inta badan markay bisinka ka tagaan bismi wax kaley gelin jireen magac kaley ku gowraci jireen nasku kaasuu sii tilmaamaya sida qaybta min aayaddu ay xusayso maxaa kalifa qofku magacii ilaahay inuu saluugo oo uu diiduu dafiro dee shaydaan baa ku daba jira oo weheliya وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم سيدين للضوضان وإن أطعتموهم إنكم لمشركون مركز سداسا هذه يشير عادة وحيد بسنك يا ذكرك يا مهدق إله يا مقع إله يا حق إله أنت شيطان ودي دنيا كو شيطان كل حد لا يانا ودي دنيا ليجادلوكم لو حيت المام سأسكفر لي ما يه مرن كيس يا شافا ترقيس هذا الكيس أنا ولاي يا دوديس مركز dadkii baa ilaahay u digayaa tilmaamaya khasmiga cidda ka soo horjeeda rasmiga ah ee la doodaysa iyo wasniga uu leeyahay inaanay fudaydsanin baa uu ku baraarujinaya rabbi ummadda ilaahay allah subhanahu wa ta'ala